بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا هرمارك جعلبا كل ينبا سود هذا سقاصح وحن سود وينيا كوا كنالك كبعينتي سكالين وين كقاطي مهتندين ولا هدات كنالك كعصب تهانا وحن كلها هي كدرسو كنالك أنا جنا كريم هدو وكالمي وحن كد ذالي دونا إن آذن كشلاين كدرس شذينا سلام كدي ما أنت بنانك تشوف سيدا يجدين ما شاء الله قرح ذا وحاوي فيتامين دبيعي داود دبيعي هواي أو كورونا أو في عن كورونا هايو مرك ما شاء الله قرح ذا daawooyinkiisa ka mid tahay ilaahay amarkiisa ka sokow ducada adinka soo duceyseen ducada waalidkeen iyo qoraxdan iyo waxyaabo kale isku daaweynina marka muuqaalkan ina xasuustaa raba dhaha aniga maanta karoon ahaa doobay ee xasuus ii noqoto 10 sano kadib 20 sano kadib haduu ilaahay idmo oo la nool yahay laakiinse dabiicinimada daawada qoraxda markii laga soo tagay kadib waxa waa filter dabiici ah waa u jeedii ma sha Allah qoraxda markii la isku fiiriyo filter iyo adduunyadan uma baahnid ayada ku qorxinayso ilaahay nimcadiis ah laakiin qoraxda muhiimadeeda iyo daawadeeda iyo karoon inaad kaga sheekay maanta uma soo gelin waxa idin wada mowduuc muhiim ah oo na wada quseeyo dhamaanteena mowduucaas waxa waay saaxiibtinimada nolosheena qayb weyn ay ka qaadataa carruurnimo laga soo bilaabo ilaa iyo dhalinyaro ilaa iyo duqnimadeena haduu ilaahay na gaarsiiyo marka inkastoo saaxiibada ay isbedbedelaan haddana laga yaabo in dadka qaarkood ay jiraan noloshaada wax badan ku jiray ama kuwa kaalin weyn ka qaadanaya xataa ay ko waqti yar ku jiro saaxiibtinimada marka maanta waxa ka sheekeynaynaa waxyaabaha burburin karo saaxiibtinimada waxyaabaha sabab u noqon karo saaxiibtinimada inay burburto waxyaabahan idin kaga sheekeynayaan maahan saaxiibtinimadeen ina burburiyo ee waxa waay in aad ka digtoonaataan waxyaabahan adinkan ina macnaha saaxiibadeen kula dhaqantiin hadii saaxiibadeen idin kula dhaqmaayaan macnaha xoogaa yar ah isdhahdin bal waxaasa jirniyahow sababay u noqon karaan saaxiibtinimadeena ama gabar yahay walaalay saaxiibay ama saaxiibow sababay u noqon karaan inay burburiyaan saaxiibtinimadeena bal arintaas ma ka tanaasulna marka waxa idin kugu sheegay waxa waay in ka digtoonaano sababahan saaxiibtinimada burburin karo sababta koobaad waxaan ku sheegay qodobka koobaad oo ah qalad laga raali gelin waayo iyo cabis la'aan qalad laga raali gelin waayo waxa waa qofkii saaxiibka ahaa ama saaxiibada ahayd qalad ka gashay adiga waa xanaaqday raali gelina suugisay laakiin qofkii raali gelin muska sameeyay adigina maadan cafin meeshaas maxaa ka dhaceyso saaxiibtinimada inay si socon weysa ka dhaceyso oo aad sidii ku kala tagtaan qodobka labaad waxa waay aqligaaga badan macrifadaadu yareeyaa dhahan Soomaalida aqligaaga badan macrifadaadu yareeyaa maxaan ka wada waxa waa laga wadaa saaxiibka ama saaxiibada oo kugu danaysanayso macnaha lacagta hadhihin adiga shilmaadka ka qaadaysa markay dan yeelato ujeeda meesha rabto waa u raacaysa ama meesha rabo waa u raacaysa laakiinse adiga markaa kama helaysid oo macnaha qofkii saaxiibada macnaha saaxiib waxa lagu yahay in wax la isweydaarsado Soomaha laakiin hal qof bis hadii waxa qaaditaanka bis ee ka iimaanayso waxa laga wadaa aqligaaga badan saaxiibtinimadooda yareeya saaxiib macrifadaadu yareeya waxa laga wadaa qofka hadaa ku danaysanaysid qof kasto dabaal ah adiga dadka qaarkood macnaha waa la isdabaalsiina laakiin si way ku dareensan yihiin in oo qofkan inta wax dhiibaysid inta macnaha u daneynaysid in ay ka badan tahay intuu asaga macnaha dantiisa uu kugu fushanaay sidaas darteed akhyaaray qaasatan dhinaca lacagta waliba aad uga digtoonaada nina wuxuu arkay qisayar laba nin oo sheekhayaal hab isiina markaas wuxuu yar warsha dadkan waa maxay sida isku jecel yihiin dadkan mashaayikh waa dhamaa sha Allah qalbigooda waa fiican yahay marka wuxuu dhahay lacagaan kala dhex gelin qalbi fiicnaan kale ma jirto maalin dambe waxa yiri waa qiso laakiin lagu cibra qaatan mudan lacaga kala dhex gashay meel yar quraan akhris ka soo qaateen nimankii oo isku ciirsanaya la arag markaas uu yiri maxaa ku sheegay aniga maxaa helay nimankii lacaga kala dhex gashay leeyahay marka lacagta marka qaarkood saaxiibtinimada sunay ku noqon kartaa qofka saaxiibka ah macnaha dabcan hadaad awoodin oo tabar u lahayn waa caadi hal qof haduu wax bixiyo laakiin adigna waxa ku dadaashaa maalintaada in aan qofkaas wax ku saacidid inta ku saacidi kartid isku daneysashada sidoo kale macnaha qofka maalin hada u daneysid maalin labaad u daneysid maalin saddexaad u daneysid oo aad dareentid maalin kasta qofkan wuxuu sameeysan karo inuu macnaha hadana adiga dusha ka saarayo aqliga badan macrifadu yareeya ka digtoonaada marka insha Allah qofka in aad ku daneysatiin ama asaga aad dul saarnaatiin midda saddexaad waxa waaye maseerka isbarbardhigga qaldan iyo tartanka xun maseerka macnaha qof saaxiibka ah hadaa ka maseertid ka waran waa waxun Soomaa qofkan waa saaxiibka ah waxa uu asaga haysto sidoo asaga ugu farxay adigana ina ugu farxidaan rabo maadaama asaga uu saaxiibka yahay qofkan maadaama uu saaxiibka yahay sidoo asaga ugu farxay adigana ina ugu farxidaan laga raba isbarbardhigga qaldan sidoo kale qofkan saas uu sameeyay aniga saan maxaa u sameyn kar laahay oo macnaha maanta dhan
u samayn kar la maahan waxa waay aniga sameyn lahaa ama asaga muxuu u sameeyay hadaa ku xumaatid oo qofkan waxyaabuhu ilaahay siiyaa jiro waxyaabuhu ilaahay siiyay si qaldan ha iskula barbar dhigin wixii fiican ma sha Allah uga dayso ma sha Allah u dheh kuna sii dhiirigali inuu sii wato laakiinse adiga ha isla barbar dhigin qofkan oo uu ka dareema qofkan marka tartanka xun waa midaas oo kaleeto oo qofkii wuxuu ku fiicnaa adigoo ma arkino si qaldan kula tartamaysa hadaa uu arko laga yaab saaxiibtinimadiina inay qalqal gasho midka afraad waxa waa sirti oo fakatay qofka saaxiibka ah ma sha Allah waxa way wax badan sheekaysanaysiin sirta isku qarsan kartiin sirta qofkan ku qarsato laakiin hadaa arkaysid maalin walba ayadoo meel kale joogto oo dad kale sirtaada ku dheelayaan ka war waxa waa sirtaada maalin way ka fakatay maalin labaad way ka fakatay saddexaad ma arkin oo way iga fakatay laga meelay qofkan oo qof sirtaada markastaba banaanka u bixinayo in aan wax u sheegato waa ka cabsoonaysaa saaxiibna lama sii ahaan kartid qofka hadaadan la sheekaysan karin oo sheekadaada ku aamini karin midda shanaad waxa waay been badan iyo balan ka bax qofka haduu been badan yahay horta hore dadka oo dhan ma wada heshiiyaan beenta koobaad hadii macnaha run u qaadatid tan labaad run u qaadatid tan saddexaad ku qabatid qofka uu hadana joojin waayo inta dhahdid naga joojinayo beentaas ama balan aagashiin uu kaaga bax balan labaad aagashiin uu kaaga bax mid saddexaad aagasha uu kaaga baxay aad dareentid qofkan waxa leedahay walaashay ama walaalkay aniga adigin u jeedaa maxaana dhex yaalo balanta dhiganaba hadaada ka soo bixeenno maalin kastaba meel cidla aniga iga dhaqaaqayso marka qodobkaas waa qodobka shanaad qodobada markii la isku daro kulligood waa 8 qodob oo qodobka 8aad soo bisa idin kaga dhigaa midka lixaad waxa waaye dabamaraynta guri waxa laga wadaa qof adiga saaxiib tihiin wiil kale saaxiib yihiin hadii iyo qofka aniga saaxiibanaha ka soo qaad asaga oo xaaskayga ku mashquulsan ama damcay arka ka war waxa waa ceeb weyn waay qofkaas waana umana dul qaadan kareysid maadaama qofkan oo maxal dhahay qofkan uu soo damcay xaaskaagi uuna ogyahay waliba inay xaaskaagi adiga ay tahay marka wax laga xumaado waay walaasha hadii uu soo damcayo qofku waa ma sha Allah walaasha qofku uu damci kara hadii fiican tahay adigana walaashiis waa damci kartaa laakiinse aniga ninka saaxiibkii ah xaaskiisa ina damco marnaba lagama yaabo mana ka sugaay inuu iga cafiyo hadaa inta oo xaaskiis u daba mareeyo oo macnaha isku dayo bal ina wax meel wada dhigno marka wax fiican ma ahan waxyaabahaasna waxa ugu weyn oo macnaha saaxiibkay laga yaabo wax kasta inuu cafin lahaa laakiin arrimahaas oo kaleeto ee aad iigu adkaato in isku cafino laakiin walaasha ma sha Allah waxa way saaxiibka qof fiican haduu yahay walaashan qof fiican ee tahay uu damco ما شاء الله أديك دحدي حدي وكان نقول كرتها لكن قفك حاس كاجا أما جبرة صاحبته نين كذا هكون مشغول معناها صاحبته إني كاجا حماته أدعي كرتو إنه كوع في مويس سيدا اسمه صاحبتي المدينة كبر برتو مدة تضبط وحاواي إن دادو برشو جيلو رشو ماشان ليري سومالي معناها دي هجرتي مركو حاواي قفكي dana ka soo yeelad qofka saaxiibka ah dan ka soo yeelad maalinta dan ka soo yeelatay uu kaaga soo bixi waayay danta ka soo yeelad wuxuu ku dhahay ma awoodo saana wax si iga yihiin ma sameyn karo hayaha dhahday maalin kale hadda dan ka soo yeelatay uu kaaga baxay maalintii saddexaad waxa asoo awood leh waxa u baahan tahay weydiisatay uu kugu saacidi waayay uuna heede kugu saacidi waayay qoraxda dabiiciga aheeda naga tagtay filterka naga tagay marka qoraxda ka dambeeyay marka uu kugu saacidi waayay qofka kugu saacidi waayay ساعدي sorry qofkii wuxuu kugu saacidi waayay qofkii saaxiibka ahaa wuxuu kugu saacidi waayay dantii ka soo yeelatay dantii ka soo yeelatay uu saddex jeer kugu saacidi waayay asagoo heede oo oo awoodo ama ayadu oo awoodo waxaan inaad baahi u qabtid marka saddex mar hadaa ka dareentid qofka saaxiibka ah in uu kugu saacidi waayay balanti dantii ka soo yeelatay marka qofku waa ku kala bartay dadoo barasho geelo rarasho waxa loo yirina waa sidaas qofka maalina wax ku kala baranaysa laba maalina wax ku kala baranaysa maalinta labaad ina cafis laga yaabaa saddexaad laakiin aad dhahdid qofkan aniga haduu macnaha aan isku haleyn karin ama oo saaxiibteen waxa lagu yahay maalinta isku baahan yahay in la saacido laakiin maalinta anigu saacidaad u baahanahay bis hadaa saacidaad helo
oo maalintiisana uu isaacidi waayo oo 3 jeer ee dhacda arrintaas aad inay u adkaataa laga yaabaa qofkaas saaxiibo inaad si ahaatiin marka dadka maalin aan isku kala bartaa 2 maalin isku kala bartaa kadib laakiin arrinta aad ay u adkaanaysaa ragoo barasho ama dadoo barasho geelo rarasho waxa loo yirin waa waxaas midda 8aad oo ugu dambeeyay waxa waa arrintan hobby iyo hami kala duwan dadka hadii hobby iyo hami kala duwan dhalinyaradiina ama caruurnimadiina saaxiibo ahaadeen waan saaxiibtinimo waxay ku burburto qodobka ugu fiican qodobkan waa horta horeeto qodobkan ugu fiican qodobada kale oo dhan waxu yihiin laakiin qodobka ugu fiican qodobkan waaye oo anigana macnaha saaxiibtinimo hadaa ku kala tagaysiin midka ugu fiican waa midkan kan waxa waaye hobby iyo hami kala duwan qofka saaxiibka ah marka ay yaryareedeen hadaa isku hobby aheedeen ma sha Allah waa wax fiican marka laakiin si soo weynaateen waxa dareemaysaa qofkii kala hobby inaad tihiin kala hami aad tihiin oo uu wax kale ku haminayo inuu wax kale tahay ku haminayo aad dareentay saaxiibtinimadana hadaa laba jiha kala duwan u socotiin in ma fiicno in aan qofkaas si ma jiha fiican haduu qofku ku joogo ma sha Allah waa ku saacideysa waana saaxiibana waa si ahaan kartiin laakiin se laga yaabo qofku inuu arkino fan iyo fanaanimo inuu ku haminayo ee yariisa laga celcelinaa meeshan agteeda joogo marka fan iyo fanaanimo inuu ku haminayo laga yaabo qofkii adigana aad ku haminayso bulshada inaa wax u tarto iyo waxyaabo kale oo faa'iido leh oo macnaha uu sadnabi ka soo gaareen oo aad ajir ka helayso markaas oo kale waxay ku fiican tahay saaxiibtinimada laba wado oo kala duwan inay kala aadaan oo qofkaasna fanka iyo fanaaniinta uu raadsado adigana aad raadsato dadka bulshada anfacay iyo kuwa kale oo wax laga faa'iidayo aad la saaxiibto marka qodobkaas wuxuu hobbigiin haduu kala gedisan yahay aad u kala gedisan yahay oo midna hobbi xun uu leeyahay midna hobbi fiican uu leeyahay ayadoo kale laga yaabo marka saaxiibka ama saaxiibada hobbigiisa saameyn kugu yeelana macnaha qofkan caadooyin xun haduu leeyahay oo hobbigiisa ah adigana maalinta dambe geeskaaga inaad ka qaadatid dhici karto saas darteed qodobka ugu fiican ee saaxiibtinimo ku kala burburto waa qodobkan ma sha Allah hadaa dareentid qofka inuu hobbi xun uu leeyahay ama hami xun uu leeyahay wadada waa ka weecan kartaa waxa dhihi kartaa walaalkay ama walaashay xiriirkeen inuu xoogaa iska soo gaabto waa dareensantahay u maleena saas darteed maadaama aan laba wada kala socon ad marka koowaad macnaha dabcan waxa isku dayaysaa qofka saaxiibka ahaa wadadaas xun inaad ka badbaadisid hadaa ka badbaadin kartid hadii kale tan adiga nafsadaada aad badbaadisid marka waa 8daas qodob waxa jeclaysta maanta inaan idin la wadaago haduu Ilaahay idmo oo aan kula talinayo si fiican inaad uga fiirsatiin saaxiibtinimadiina in aysan ku burburin intaan ka ahayn qodobka 8aad saaxiibtinimada haday ku burburayso ma sha Allah waa waxa haysataa sabab fiican haysta ay saaxiibtinimadan ku burburto laakiinse kuwa kale insha Allah waxa ka digtoonaatiin in aad iska ilaalisiin oo saaxiibtinimadiina aysan waxyaabahaas oo kale isku burburin kulankan ku xig intaan ka kulmeen waxaan idin leeyahay ballanteen waa raadsan reeb salaamu alaykum